السلام عليكم ولا المقعة عليكم السلام والسلامين وكا قدومي سلام شرفيد أدوغنا إيقا قدون إن مقعة إيش يدو راليا والله وأنيقا نعيميري ما إن شاء الله نعيميري سودو أدوان كو سلامي سيقودة هاري وهي برنامجك سيئو قربو أدوان أغهلي عاد يوغن قبل يقول رئيس تشريع كشيكين aniga laftigaygu waa DJ dayla ilaa hadda qoslayo ku soo celcelinayo waxa magac baan u raadiyay waxaan idhi fooshi qaniyada ku qaraabanaysa naga cilmidaas bal aye nicmo yaray ani ma ku dheeraan doono waxaana aad uga helay ciwaanka qisay qurbo si wanaagsan waxaan dhacday qurbo nacas waa iska taqaanaa oo Soomaali oo qurbo soo wareegin ma jirto ani Nairobi ilaa Qaahira soo maray Qaahira anoo jooga waxaa dhacday marka maalina meel waxaan isku imaanay dad tiro badan marka dadkii saa u sheekeysaneenay qisadaanay ugu dhacday saa u sheekeysaneenay oo loo wada hadlayay qof kamid ah wuxuu galay inuu oo baalaha ka rifo ama oo xanto qoftaan la dhaho Nicimo Yaray waana fadhiyaa aniga mana yaqaano uuna xamanaya ma adigii naftigaagii oo meesha jooga buu ku xamanaya qofka magaca aniga ima raacinayo Nicimo Yaray oo dadka kale ay igu aqoon lahaayeen war qoftu waa kan weyna ag fadhisaaye warban isqabala qiyaa markuu wuxuu isticmaalaa qofka magaca Nicimo wuxuu isticmaalaa astaamahayga aniga uu tilmaamayaa waa qofkaas gaaban cad ama saan ama qsaan informationkayga aniga uu bixinayaa qofka ma fahanta degan xaafadaas dabaqaas buildingka saas uu leeyahay ma fahantay in adag afada lahayn ma qabat haye adigoo wallahi waad ka igu horeysay oo aan qurbo kala kulmay ahayd sidaas ilaa hadda waan jeclahay inaan ka sheego meelo badan oo aan isku diyaarin wali inaan ka sheego laakiin qalbigayga markasta ka buuxda waxaan jeclaada maanta si qurbo marka arkaa wallahi tan adigaba ka hadlaysaa qurbaadkii wad sheekada Nicimo Yaray wad sheekada aye wuxuu anigi ifaaleeyo wixii oo maxaa la dhahaye oo ani xanto barnaamijku dheeraatay waa la isqabsaday marka qofka oo maxaa la dhahaye iyo qofka ani waxa iga sheegayay dadkii kale way isqabsadeen waxay isku qabsadeen dadkii kale gabadhaas magac ahaan oo Nicimo ahaan iima fahansana dadkii ii doodaya oo Nicimo Yaray ahaan iima fahansana laakiin ani waan isfahmayaa qof kale haysto sheekada qofkay ku socoto sheekada jirtay wixii dhan ani waan la socdaa moogtahay si wanaagsan adduunyada nolol qaarati ku waa ani call recording qabsaday waan duubtay codkii waa la falaqeeyay qabiilo loo kala baxay meeshii waxa ku dhaca xaalad meel xun ay gaartay أنا ما كده حاضرين خفك مركو ها إسرائيل دا وجوابتي أو دا واحد بروبلم كان كده شيء خفك الله يستوى أنا جا بدك إيدو دا أشياء خفك هنا عنده ورولالي خفك هاي ستدوا أنا جا ماشي عاد خو حمني ست أما زمالي وكثير ستاي كثير سعيد هاي وان إسواني وحن سكر هاي نعيمه إلبا جرتي أما أفكيرا عاد واختر عذا أما عاد أنت سكو أيوة ساعات إصدقاشان marka magacii nasiiba maalin bay baxaan magaciigina ila shaday recordingkii la hadda waan haystaa qofkiina ilaa hadda xitaa kuma dhihin qofka aad haysata anoo ahay laakiin dadkii ii doodayay gadaal baan uga sheegay bal maxay gaar waxaan adduunyada qof aadan aqoonin oodan garanaynin aydiisi marka markasta micno waxa ku jiro qof aadan aqoonin oo xamanaysid micnaha waa waxyaabo oo macquul aan noqon karin laakiin aad informationkeeda أما نلشيدا أما أساس جروجيدا واحد كستوى الله سعطاء لا فهم وجهنا مو قرنيتي ما فهمت نعم لكن ما كانوا عن إسرائيل وحال لغيا بقى قفك إن information أنت أي هي ستو لكن قفك أي information كاسك هي ستو إيسن أفهم من Nicimo Yaray لكن وحن أقعد قرار إني كو أقعدي قفك أي مالين تسحمني إن أنا هاي إني أقعدي أي تري Nicimo أنا Nicimo كلام أخاتي Nicimo أنا كشيء كنا ينهستنا Nicimo كلام هست لكن Nicimo Yaray aan kugu soo celiyay su'aal adige bal waxaad ii sawirtaa adigoo bulshadii dhex fadhiya qoftana ay kugu fafakanayso ay wax ka sheegayso see dareemaysa wallahi waxa dareemay ma ka sheekeyn karo oo waliba qofka aad bay ii galeystay
oo aad bay aniga guud ahaan macnaha way kugu dalax waxaan ii reebanaynin af Soomaaligan dambe aan isticmaalo dhalinyarta si noo fahmaan baalahay ka riftay Sooma baalahay waxay ii reebata malahan markaas meesha aan joogana waxay ahayd guri waalidkay aan joogay oo maamay weyn oo markaas aniga ayada aan u marti ahaa oo anina ay casuumatay qofkaan iyo dadkaan kaloo meesha joogana casuumatay marka waxaan dhahay qofkaas qaali waad mideeda kalaana qof bulshada ku dhex jirto magac ku dhaxlaha nacam inta badan waxa fudeedka ama degdega waan iska ilaaliyaa ee dadka igu dayaneen nimayaan kula kaftame waxa lagu yaqaanaa arrimaha buraamurka iyo aroosyada si wanaagsan dadku way aqoon fiican bay ku leeyihiin maxaad buraamur uga tirin weysay arrintaas arrintaas sidaas inaan buraamur ka tiriyo oo ayadoo sida meestiran qaabkay ku imaatay waxa alalaha siday ahaayeen oo sheekada faahfaahinayo aan rabaa inaan soo bandhigo hadana waxaan jeclaystaa inaan kula wadaago aad baan ku salaamayaa Nicmayare khayr badan adduunyada nolol maxaa aragti ku laaban way mahadsantahay Nicmayare qof kale khadka igu jira haddii Ilaahay yiraahdo waa qiso cajiib ay ahayd run ahaantii oo qof adigoo taagan oo nool kuma sabidaya oo waxaadan ahayn markaas ka sheegay assalaamu calaykum assalaamu calaykum qofkan isma maqlayno inuu soo celin doona mashaakil male inta badan marka arintaas Nicmayare waa qof dadka mid dadka bulshada sida wanaagsan u taqaano oo macrifa laakiin qisada Nicmayare waxaan kala soo baxaynaa in dadka masabida ay mucjiso yihiin oo indha adayg ay gaareen heer qofkii ay xamanayeen aysan aqoon fiican u lahayn waxaan maqli jiray bani aadanka laba lagu jeclaadaa magaciisa iyo hadalhayntiisa waa lagu jeclaado hebel markii laga badiyo hebel waa sida ama hebelwaysa waad iskaga jiboonaysaa marka Nicmayare waxaa laga yaabaa inay qoftani magaceeda maqashay laakiin muuqaalkeeda aysan aqoon waana sababta keentay markaasi iyadoo la taagan inay baalaha af Soomaaliga dambaan isticmaalay baalaha ka rifto qisadii labaad ee markaasi la wadaagay bay ahayd qisadana inaan magac u bixinay noqon doonta hadduu rab raalli ka noqdo qiso kastoo inagu dhacday qisadii qosolka badnayd ee umushii qaniyada aan u bixiyey ama fooshii qaniyada maxaa kusoo xigaysa Nicmayare barnaamijkeeda oo iyadana leenahay indha adaka ma aroor hore dhalatay والله وعجيب وي بقف إن أذيك يا أورك هو يدي من حتى كسب حينا وكاكينا ما نحنا إن أذيك أورك هبرتي أما أورك هو يدي من حتى كسب حينا وكاكينا لأن قف السجو إنديه شني تبيه هلا تاجيه حبنية إيش كده جايين وقوم في عنو ليه هذا قف حمنية وأكفليه وأرن عجيبة waxaana kula kafta min Nicmayare inaan dhahay bal de buraamburka lagu yaqaan aroosada aruuskii aroosada oo buraamburtaay amaan baad kala dul dhacday bal iyadana macnaha buraambur u soo sameey waan sugi doonaa insha Allah barnaamijka uu soo sameyn doonto waa tahay daawadii halka wali arna la socotaan barnaamijka qurbo iyo qiso ama qiso iyo qurbe gabagabo ayuu barnaamijku marayaa hadduu rab raali ka noqdo waana barnaamij toddobaadla oo ku doonayno in dadka walaalaheena qisooyinkii ku dhacay ay la wadaagaan marka qisada qofka marka la wadaagaysid waxa la yiraahdaa laba faa'iido leedahay adiga culayskii ku saarnaa uu ka dagayaa labada digniinba u tahay oo qiso noocaas oo kala ah qofka markii uu daawado hadii saansaanta bini aadanka qisadii wax u eg ay ku soo dhacdo cashir buu ka bartaa oo uu ka hortagaa waayo waxa lagu leeyahay qiso kasta qisooyinku way kala duwan yihiin qof kasta ay qabsadaan laakiin waxa laga yaabaa xilligay dhaceen inay ku kala duwan yihiin hadduu rab raali ka noqdo daawadayaal intaas waxaa ku dhan barnaamijkeennii qurbe iyo qiso oo aan toddobaadkan saddexdaa qiso ku soo qaatay hadduu ilaahay yidhaahdo toddobaadka soo socda waxaan jeclaan doonaa inaad noo soo gudbisaan wixii qisooyina idinkoo noogu soo diraya xogmaal gmailkiisa ama snapchatkayga british fure facebookayga british fure ama deeq darajo hadduu rab raali ka noqdo qisooyinka marka haddaad noo soo koobtaan waanu idiga mahad celin doonaa waxaa sidoo kale ah qisooyinka marka aan ka sheekaynayno markaan anigu tabinayo qofka ogolaada magaciisa inaan sheega maahane qisada lanoo soo dhiibo oo dhan si guud oo camalaysan oo wanaagsan oo asluubaysan baan u sheegi doonaa
laakiin lagama yaabo inaan saddex arrimood sheegno qofka uu qofku yahay halka ay ka dhacday iyo magaca qofkaasi hadduu ilaahayna intaa ma sheegi doono sababtoo ah waxaan sidoo kale qaadanaynaa qisooyinka ay ogol yihiin shuruucda saxaafadda iyo dhaqanka iyo asluubaysan islaamku oo ah wixii asturan ee bulshada lala wadaagi karo qisadan u aragno inay jebinayso dhaqankeena iyo diinteena suuban oo ay ereyo qalafsan oo qaawan ku jiraan waan ka cudur daaran doonaa inaanan soo gudbin doonin qisooyinka aan soo gudbin doono waa tii gabadhii ku dhacday aan u bixiyey shisheeyan ku maqnaaye sokeeye aan saxan cunto ugu sooray silcmay baday iyo gabadhii foosha dadka ku qaniinaysay iyo tii aan u bixiyey indha adeyg intay gabadh taagan meesheeda ag fadhida iyada xamalaysa qisooyinkaasoo kale waa tid bulshada la wadaagi karo laakiin wixii qalafsan ama qaloocan qaali walaal waxaan ka cudur daaran doonaa tan intaan ku kulmi doono toddobaadka soo socda barnaamijkeena qiso iyo qurbe waa anigoo cabdiraxmaan xuseen furo british oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo